aniga geelle golayaashii deegaanka sawtiin la soo magacaabi jiray maamulka degmada maxay tahay arintan cusub arintan way ka bedelan tahay hadii xilli hore la soo magacaabi jiray maamulka degmada maanta bulshada ayaa dooranaysa oo qofkii wax taraya ay soo xulanayaan waa ilaah mahadi marba hadii codkii dib noogula soo celiyay ما شاء الله روال سواي ما شاء الله ها روال سواي هاي ما شاء الله هاي هاي ما شاء الله هيا اليوم هذا نوفي عنه نمع الله وما هذه إلهي أنا نوفي عنه مع المها المجال الشرير يزدب أرض بدن أيام كأركي محصو أسبوع هذا إن قالوا ورمية النودين إلا لسه golayaasha deegaanka sootiina soo magacaabay jiray maamulka degmada maxay tahay arintan cusub arintani way ka bedelan tahay hadii xilli hore la soo magacaabi jiray maamulka degmada maanta bulshada ayaa dooranayso oo qofkii wax tari lahaa ayay soo xulanayaan waa ilaahay ma hadii codkii dibna loogu soo celiyay ma sha Allah ma fahanteen dumashi arintaas waa muhiim wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashanaysa oday dhaqameedyada iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa wada shirdi heshiisiineed iyo dhamaystirka utumihii iyo tabashooyinkii dadka kala gaaray ma sha Allah arintaasi waa arin wanaagsan hadii aanu nahay dadka deegaanka sidee baan doorkeena ugu qaadan karnaa oo aan dadku iskugu soo dhaweynaa bilow doorka ugu muhiimsan waxa iskala bulshada oo ayagu soo dooranaan dadkii kuma tilaa golaha deegaanka afmadow sidaa darteed waa inaan ka qayb qaadano shirarka lagu walaaleynayo bulshada xaaji fadhi ma yaalo waa inaan ka bilaabo reeraha dariska oo door weyn ka qaadano xaajiyo waa sidaa weliba dumarka kaalin muhiima ayay ka qaadan karaan nabadda iyo isku soo dhaweynta bulshada arintan waxay idin soo gudbinaysaa wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland oo kaashanaysa hay'adaha FCA, CRD iyo ISA waxaana maalgelinaya midowga Yurub.